daljirka liyuuge diiftiya dabaylaha oo dulqaatay weeyaan kaba daaran orodka duurkay jibaaxaan dooxiyo bannaanada socod bay ku duubaan bacadka iyo kulaylka ma dareemaan dhaxanto hurdadaaba hadalka ciidankeena gaarka ciidanka liyu boolisku waxaan aaminsanahay inay tahay laf dhabarta deegaanka inay yihiin kow noloshu waxay ku aasaasan tahay waa nabadgelyada nabad haddayna jirin nolol ma jirayso caawa haddaad gurigaaga nabad aad intaa u saxdaada nabad soo toosi inaad ku kalsoonayn nolol ma jirayso wax kastoo aad haysato marka saa darteed ciidamada ahliyada liyu booliska in mar kasta la garab istaago mar kasta loo muujiyo dareen loo muujiyo mar kasta loo muujiyo naxariis waa wax waajib nagu ah weeyaan waayo had iyo habeenba waxay noo taagan midacdii noo taagan yihiin dhaxantay noo taagan yihiin roobkay noo taagan yihiin carruurtoodii iyo haweenkoodii meel kastay innaga darteed nooga saahideen kolba deegaanka kolba xuduud ka mid ah meel uusan aqoonin baa lagu tuuraa kolba dhinac marka saa daraaddeed in mar kasta la garab istaago mar kasta farxad loo muujiyo dareen loo muujiyo waa wax nagu waajiba ciidanka iyo mataqaanaaye dhalinyarta iyo hadday shacabku noqdaanba waa isku xidhnaadaan ma dhila si looga qayb qaato mataqaanaaye amniga waayo waddankeenna hadda mataqaanaaye qolyo xun baa mataqaanaa inu soo afargeliniyo ilaaso mataqaanaaye waan ka guulaysanay haddii aan si garab taagnaano waxaan dhihi lahaa cadow kastoo isku daynimo awoodiyo inuu macnaha na soo dhex istaago sidii loo garab istaagay si ka wanaagsan loo sii garab istaagaan taageersana sababtoo ah waxaan ku dhaqannahay ama nabadgelyada ku haysanno ee aan socodkan iyo dhaqdhaqaaqan xorta ku haysannahay waa ciidanka wallaahi taageeraha ay shacabku ciidanka u muujiyeen aad bay u taageereen inay garab istaagaanna way ku mudan yihiin sababtoo ah ciidanku annaga ay naftooda noo hureen ciidankana waxaan leeyahay maxaan ku hajiro ha joogo liyu boolisku aadna waan u taageeraya dhalinyarada deegaankana waxaan mar kaste aan diyaar u nahay oon u garab istaagaynaa inaan naftannada maalkanaga wax walba aan u horno nabadgelyada deegaanka ciidankana aan ku garab istaagno dhiiggana aan u shubno waa shay waajiba muqadis nagu ah annagoo ah magacii dhalinyarada ku hadlaya ee meel walba waxaa loo baahan yahay in la garab istaago ciidanka liyu booliska meel walbay joogaanba hadday qabaleed tahay hadday gobol tahay hadday degmo tahay waa halyeeyadii waa nimankan ku seexanno waa kabihii shacabka waxaan habeen iyo maalin meesha artay askariga dhaxanta joogto waxay u rafaadayaan waa shacabkoodii hooyo kasta iyo aabbo kasta waxaa ka go'an inay garab istaagaan annagu haddaan dhallinta nahay waxaa mataqaanaa aan u hurnaa dhiigga annaga inaan u shubno habeen iyo habeen waan garab taagannahay boqolkiiba 57 iyo dhalinyarta ku leedahay aan dhihi karaa 25 kalena waxay weeyaan waa maskaxda ciidanka iyo waxay weeyaan xoog oo iyagu naftooda iyo maalkooda u horaya oo uga soo tagay reerahoodii iyo dalkoodii iyo ciyaalkoodii sidii amniga deegaanka u sarreyn lahaa u noqon lahaa mid joogta loogu waar lahaa waxay weeyaan nabad hooyada umuleysa si ay nabad ugu soo timaado waxay weeyaan isbitaalada meel walba wixii loo baahay hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto xarun caafimaad waxaas oo dhan waxaa naga kabay ciidanka xoogga gaarka oo waxay weeyaan isagu u taagan hadiya habeenba nabad sugidda amniga shacabka waxaan kula dardaarmaynaa iyo haweenkaba iyo raggaba inay wiilasheena garab istaagaan ay moraalkooda u dhisaan ilaahayna daha garab galo cashir la bartay ahayd dhacdadii shalay dhacday cashir aan baranay ahayd si ay isii joogto oo isii raagto ay midhaar u dhasho oo mid dhaqanka shay u noqoto isii joogto ay u waarto waa in horta marka koowaad laga sameeyo qoraal waa in berri ka maalin dhibaatooyinka imaada la xuso middan si loo garab istaago oo kale hadhow markii la isu garab istaago aqoon-yahankeena waxaan farayaa inay ka sameeyaan arrimaha noocan oo kale ah si bulshada iyo ciidanka mar kasta dhexgal loo sameeyo la isugu soo dhaweeyo bulshada mar kasta waxaan fari lahaa in laga sameeyo shirar la sameeyo dhalinyarada wacyigelin badan la sameeyo cadowga dadka dhammaantii ciidanka ilaa maa in xitaa bulshada dhalinyarada xitaa in la tababaro qaabka cadowga waa la iskaga jiro qaabka dib deegaanka nabadiisa loo ilaaliyo shacabka waxaan kula dardaarmaynaa meel walba uu joogo inuu iska saaro waxay weeyaan mas'uuliyaddaas oo inuu ilaaliyo amniga kana ilaaliyo waxay weeyaan meel walba uu joogo wixii xasilooni darro amni darro abuuri kara misana waxay weeyaan khalqi gelin kara waxay weeyaan shacabkii waxay weeyaan dawladda ha ka feejignoodaan baan dhihi lahaa dadka waxay leeyihiin aragtida xun aaminsan ee waxay weeyaan dadka heblaaya saatiri iyo hebel baa sidaan tiri iyo waxay weeyaan amni darro joogta waxaas ma joogtay deegaanku waa nabad 100% waxaana ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga mahadnaqaynaa ciidanka hadiya habeenba waxay weeyaan naftooda noo huraya inuu waxay weeyaan hamigooda iyo hinsigooda uu sareeyo insha Allah ay meel walba ay joogaan ay guuleystaan dhibaatooyinka beri dhow deegaanka ka dhacay meelo ka mid ah al-shabaab iyo cadowga nagu soo weeraray iyo taageeradii shacabku dhammaantii qaybihiisa kala gudboon bulshada dhammaanteed hadday tahay odayaasha dhalinyarada
culimmada haweenka cid walbay tahay ay ka qayb qaateen haddii aan ka hadlo waxay ahayd taageero aad iyo aad loogu baahnaa xilligeedana ku dhacday taageerada noocaas oo kale waxay noo muujinaysaa inay isku duubnaantu iyo isgarab istaaggu awoodda ay leedahay waxay noo muujinaysaa shacabka deegaanku hadday isgarab istaagaan gacmaha isqabtaan wax kasta inay ka adkaan karaan cadow kastana ka difaacan karaan waxay noo muujisay oo na tustay awooddeenna deegaan ahaan iyo dal ahaanba aan u leenahay inaan cadow iskaga difaacno hadday noqoto wax kastoo nagu yimaado inaan iska garab istaagno hadday noqoto abaaraha nabadgelyo darrada wax kasta oo dhaca isgarab istaaggu iyo ismuujintu inay tahay awood dheeraad inay tahay